kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warka Samakaab TV daawadayaal qodobada ku daawad doontaan waxa kamid ah ciidamada amniga oo xabsiga dhigay fanaan Cabdi Dhaanto looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay dagaalamayaasha Al-Shabaab guddiga doorashada Galmudug garabka dawladda Soomaaliya oo ballan qaaday Khamiista soo socota ay dhacayso doorashada madaxweynaha Galmudug iyo qaar kamid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxweynaha Galmudug oo ka biyadiiday doorashada Khamiista dhacayso hogaamiyaasha militariga Itoobiya iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis cusub beelaha habargidri Abgaal oo Muqdisho heshiis ku kala saxiixday iyo Mareykanka oo wada qorshe cusub oo ku kala qeybanaya dalka Ciraaq haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 28 bisha koobaad January sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraad ah ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowna Muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa xalay xabsiga dhigay fanaan kamid ah fanaaniinta Muqdisho kuwooda ugu caansan oo lagu magacaabo Cabdi Dhaanto askar ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa degmada Hodon ayaa ninkan ka qabtay meel u dhow xarunta degmada Hodon isagoo maraya warar hoose aan helnay ayaa sheegay in ninkan lagu haysto hadal uu dhawaanahan shaaciyo ahaa in nin fanaan ah oo isku qarxin doono furitaanka dhismaha tiyaatarka qaranka oo dayactir lagu sameeyay iyo fanaankii Al-Shabaab ka sheegtay inuu ka tirsanaa ee Abshir Gaarane la jirdilay sidaasna ku sheegtay inuu yahay Al-Shabaab sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in kastoo aan la xaqiijin in laftigiisa fanaankan looga shakiyay inuu xiriir hoose la leeyahay dagaalamayaasha Al-Shabaab laamaha amniga kama hadal xariga loo geystay fanaankan balse wuxuu imaanayaa xarigiisa iyadoo maalmihii u dambeeyay hay'adaha amniga magaalada Muqdisho ay qabqabanayeen xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya balse xiriir la leh Al-Shabaab waxaana kamid ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir inkastoo la kala diray rugta oo la sheegay inuu soo magacaabay Al-Shabaab iyo fanaan lagu magacaabo Abshir Gaaran oo ka tirsanaa waaxda fanka gobolka Banaadir markaana Galmudug guddiga doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa garabka dawladda taabacsan ayaa mar kale waqti kordhin u sameeyay musharaxiinta aan wali isdiiwaan gelin ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb kuwa oo ka biyadiiday qaabka ay haatan dawladda Soomaaliya wax uga wada magaaladaasi guddiga ayaa sheegay in maanta 6 saac ay soo gabagabeyn doonaan isdiiwaan gelinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale guddiga doorashada ayaa ballan qaaday inaanu wax isbedel aysan ku imaan doonin jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxay sheegeen Khamiista soo socota taariikhdan ay tahay 30 bisha koobaad ee January ay Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ka dhici doonto doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa guddiga doorashada ayaa maalmihii u dambeeyay diiwaan gelinayay musharaxiin ay wadata dawladda Soomaaliya kuwa oo la sheegay inay yihiin musharaxiin u camiraya Cabdi Kaariyo Qorqor ay wadato dawladda Soomaaliya maadaama inta badan musharaxiintii caanka ahaa la filayay in ay ku tartamaan doorashadan ay iska biyadiideen ka qaybgalkeeda maadaama guddiga doorashada Galmudug ay laba garab u kala jabeen garab kaliya ah doorasho uu wato aysan ka qaybgelin waa sida ay sheegeen musharaxiintani Cabdi Kaariyo Qorqor oo la sheegayo inay wadato dawladda Soomaaliya ayaa shalay diiwaan geliyay dhinaca kale waxaa 5 xubnood ee ka go'ay guddigii doorashada ee 8 ahaa ee iyagana dhankooda diiwaan gelinayaan musharaxiinta madaxweynaha waxaana muuqata jawi kale oo Dhuusamareeb ka suurtageli kara doorasho labaad dhinaca kale 4 musharax ay ka biyadiidan ka qaybgalka doorashadan oo kala ah Cabdiraxmaan Odowa Cabdi Dheere Cabdullaahi Faarax Weeliye Gamaal Guutaale ayaa shuruud adag ku xiray ka qaybgalka doorashadan dawladda Soomaaliya sida xoog ah Dhuusamareeb uga wado kadib kulan ay 4 musharax ku yeesheen hoyga uu magaalada Dhuusamareeb ka degan yahay musharax Cabdiraxmaan Odowa waxa ay shuruud ku xireen ka qaybgalka doorashada madaxweynaha Galmudug musharaxiintan oo kala ah Odowa Gamaal Guutaale Cabdi Dheere iyo Wehliye ayaa ka qaybgalka doorashada la filayay in Khamiista ka dhacdo Dhuusamareeb ku xireen 5 shuruudood kuwaas oo kala ah in la xalliyo dhammaan muranada jira ee u dhaxeeya saamileeda siyaasadda Galmudug 2 in ahlusunna wala jameeca ay ka qayb noqoto qaybaha dhiman ee doorashada Galmudug 3 in la baabi'iyo gebi ahaanba guddiga doorashada madaxweynaha ee haatan jira iyo in la isku keeno saamileeda siyaasadeed laguna heshiiyo waqtiga doorashada 4 in guddoonka baarlamaanka Galmudug oo xildhibaanadu u ogolaado inay si xor ah ula kulmi karaan musharaxiinta madaxweynaha iyadoo aysan jirin wax cadaadis ah ama hanjabaad 5
in doorashadu noqoto xor iyo xalaal islamarkaana gacan saddexaad ay goobjoog ka noqoto. Dhanka kale ahlu sunna ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb waxa ay ka waday abaabul doorasho, waxaana Dhuusamareeb ka socda xildhibaano ay soo xulanaysa ahlu sunna si ay u qalgeliso doorashada garabka dowladda taabacsan Dhuusamareeb ay ku qabanayaan Khamiista soo socota. Dhanka kale doorasho saddexaad oo Galmudug ah ayaa waxay ka socotaa magaalada Gaalkacyo dhankeeda koonfureed, waxaana doorashada hogaaminaya madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dowladda Soomaaliya khilaaf kala dhaxeeya. Xaaf ayaa soo xushay xildhibaano waxayna doorteen gudoomiye baarlamaan oo ku meel gaar ah, iyadoo dhawaan la filayo in baarlamaanka ay doortaan gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug. Gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug garabka dowladda Soomaaliya taabacsan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yiri guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee hadda shaqada ila meesha fadhiya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaa isi soo diiwaan geliyay 9 musharax oo kala ah 4 musharax waxay u tartamaysaa madaxweynaha Galmudug, 5 waxay u tartamaysaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. waxaan rabnaa guddigu markuu fariistay waxaan rabnaa inaan fursad kala siino musharaxiinta dib dhacsan hadday jiraan. waxaan rabnaa inaanu siino fursad kale oo ku beegan 28-ka bishaan. waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno doorashadii sidii loo asteeyay ayay u dhacaysaa. khudbaddu musharaxiintu waa 29-ka oo ku beegan Arbaco, 30-ka bisha oo ku beegan Khamiisna waa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. xaaladda Dhuusamareeb ayaa saakay ah mid cakiran, waxaana laga cabsi qabaa in magaalada ay ku hardamaan ciidamo kala taabacsan ahlu sunna iyo dowladda federaalka oo maalmihii u dambeeyay ciidamo ku daabuleysay magaalada Dhuusamareeb, ciidamada oo laga qaadayay Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa isku dayeysa in si xoog ah maamul Galmudug la yiraahdo gacan ku rimis ah ay uga suurto geliso magaalada Dhuusamareeb. maamulka haatan dhismihiisa la isku khilaafsan yahay ka socda Dhuusamareeb marka laga reebo kan Xaaf waxaa ka diidan inta badan beelaha caanka ah ee dega gobolka Galgaduud. hogaamiyaasha Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, siyaasi Afriki iyo Abiy Ahmed ayaa kala saxiixday heshiis cusub. mas-uuliyiintan ayaa yeeshay kulan qaatay saacado waxayna uga wada hadleen kulankooda xaaladda ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ee u dhaxeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika. saddexda hogaamiye ayaa waxay mar kale ku celiyeen siday uga go'an tahay heshiiska saddex geesoodka ay saxiixeen bishii Sebteembar ee sanadkii 2018, waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalkoodii wadajirka ahaa ay ku aadanaa hirgelintooda. sidoo kale hogaamiyaashan waxay soo saareen qorshe lagula dagaalamayo halis ku wajahan sida la dagaalanka argagixisada, hubka, tahriibinta iyo maanduuriyaha. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa kulanka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta. madaxda dalalka iyo dowladaha Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa ku kulmay maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 27-ka bishii Janaayo ee 2020 magaalada Casmara. saddexda hogaamiye waxa ay yeesheen wada hadallo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladaha ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika. saddexda hogaamiye waxa ay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya, kaasi oo xoogga lagu saarayo labada ujeeddo ee isku dhafan ee adkaynta nabadgelyada, xasiloonida iyo amniga, iyo sidoo kale sare u qaadidda horumarka dhaqaale iyo bulsho. waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen inay dardar geliyaan dadaaladooda wadajirka ah si kor loogu qaado iskaashi heer gobol ah oo wax ku ool ah. dhanka ammaanka, saddexda hogaamiye waxay isla qaabeeyeen qorshe sal ballaaran oo lagula dagaalamayo lagagana takhallusayo guud ahaan caqabadaha ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin argagixisada, hubka, tahriibinta dadka iyo maandooriyaha. saddexda hogaamiye waxay isku raaceen inay si dhow ula tashadaan walaalahooda iyo madaxda dowladaha kale si loo xaqiijiyo iyo didiilada dadkooda u qabaan helidda iskaashi dhex mara Geeska Afrika oo wax ku ool ah. Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa ku jira isbahaysi saddex geesood ah oo ay dhisteen, balse ilaa ay haatan aysan jirin wax la taaban karo u qabtay. shirkan ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo 11kii bishan Farmaajo uu ka soo laabtay Casmara, isla markaana uu kula soo kulmay dhiggiisa dalkaas isagoona kala soo hadlay arrimo dhowra. markaana warkii dibadda daawadayaal, qorshe cusub oo Sunniyiinta Ciraaq loogu sameynayo dal madax bannaan ayaa laga wadaa dalkaasi, iyada oo dhinac loo reexay saameynteedana ay sii yaraanayso ayaa dowladda Mareykanku waxay bilowday
qorshe ay maamul goboleed uga dhisayso galbeedka dalka Ciraaq kaasi oo kadib noqon doona dal madax bannaan siday sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka oo la hadlay wargeyska Middle East. qorshaha Mareykanka ayaa jawaab u ah dadaalada ay kooxda Shiicada Ciraaq ku doonayaan inay ciidamada Mareykanka looga saaro dalka Ciraaq gebi ahaanba. Ciraaq waxa ay buundo muhiim ah u tahay Iiraan oo ay ku xirto dalalka Syria iyo Lubnaan oo ay Shiicadu ku taageerto aasaasidda maamul sunni ah oo Mareykanku uu maamulo oo ku yaala galbeedka dalka Ciraaq. waxay jari doonaan wadooyinka Iiraan ku xiri lahaa Syria iyo Lubnaan waxayna yareen doonaan saameynta ay ku leedahay gobolka. qorshaha Washington ay gobolada Sunniyiinta ugu goonayso Ciraaq inteeda kale ayaa markii hore soo bilowday sanadkii 2007 waxaana soo jeediyay John Biden oo hadda u sharaxan madaxweyne balse xilligaasi ahaa senator. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Samakaab TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan